you. Lego. markana qodobada kala duwan ee barnaamijka ayaanu sii guda galaynaa. adduunyada waxaa ku soo kordhay xiriir magaciisa uu yahay World Mini Football ama kubadda cagiraha dunida. waa garoomada fuustalka ciyaaraha lagu ciyaaro haddii markaa aynu sifeeno xiriirkaasi waxa runtiisu ay tahay wadanka Jamhuuriyadda Jeega. haddaba guddiga u qaabilsan xiriirkaas dhinaca Soomaaliya ayaan la kulanay gaar ahaan xogyaha guud waxa la yiraahdaa Xaaji Aadan Cabdulla Mahdi waxaan kala sheekaystay arrimo ku saabsan xiriirkan. ugu horeyn waxaan ka codsaday inuu ku soo dhawaado barnaamijka. waxaan kala weydiiyay su'aal ahayd sida xiriirka World Mini Football uu ku soo gaaray Soomaaliya iyo guud ahaanba qaabka marka hore uu ku dhismay. waa mahadsantahay walaal ku dhawahay. World Mini Football wuxuu ku asaasmay sida dokumentiyadiisa iyo markii aad gashid website-da ama aad raadisid aad ka ogaan kartid. waa la socotaa FIFA ayaa kubadda cagta adduunka govern garinaysay ama maamuleysay 100 iyo dhowr sano la soo dhaafay. laakiin markasta waxaa jiray waxyaabo oo dadka kale ay qabaan oo ah in maaragtay sportiga la balaariyo. kuwa professionka kaliya aan lagu dhaafin laakiin ilaa grassroots iyo meelaha laga soo dhiso. wuxuu ku aas-aasmay marka barnaamijkan WMF dawladda Mexico oo ka codsatay FIFA in maaragtay mini footballka ama indoorska waxa la yiraahdo oo shuruuc gaar ah leh oo 5 6 7 lagu ciyaarayo kooxdiba in lagu daro activity-da ay qabato FIFA. wagaas waxa xogay guudka Urs Lenzen la yiraahdo dawladda Mexico markay ka codsatay barnaamijkaas FIFA way ku gacan saartay oo ay diiday inay maaragtay ay ku darto sida beachka oo kale ama futsalka oo kale sida ay u qabateen ay u qabato. barnaamijkaas marka dawladda Mexico waxay la kaashatay dawladii kale ee saaxiibka ay lahayd oo iyaga laftirkooda arrintaas la dhacay. marka waxay ku asaasmatay wadamadii isu tagay ayaa sameystay FIFA laftirkeeda waagi la asaasay wadamada aad u yaraayeen oo macnaha soo bixitaankeeda waagi Paris lagu asaasay Francisca tiro aad u yaraa sameysay. maanta waxay marayaan 200 iyo intaas. kuwana waxay gaareen aas-aaskooda kadib in Europe inta ugu badan hadii UK ba ugu xoog badnaato oo leh Great Britain markii la yiraahdo Scotland iyo Ireland iyo waxaas oo dhan waxay leeyihiin xiriir oo maaragtay UK mini football leh. aadayna xoogeen hadda World Mini Football kan wuxuu gaar heer u qabto ciyaaraha adduunka inuu qabto oo qabto sanadkii dhawaa. qaaradda Afrika isagana waxa ka aasaasan African Mini Football Federation oo South Africa xafiiskiisa yahay. iyagana waxay ku wadaan kacdoon hor loogu dhigayo maxalada ay sheegay mini footballka in Soomaaliya iyo wadamada Afrika oo dhan la soo wada gaarsiiyo. Soomaaliya marka waxay nasiib u heshay iyadana in naqto wadamadii safka hore kaga jiray kacaankan oo mini footballka oo Afrika laga hirgelinayo waxay naqto wadankii labaad marka laga soo tago Tunisia oo ah wadan koowaad. Kenya saddexaad, Nigeria iyo Cameroon iyo Sudan oo ayagana ku jiro ilaa iyo Afrikada kale oo ayagana barnaamijkooda la bilaabayo sida Gambia oo kale way socdaan howlaha. marka fiirisid America way ka jirtaa hadda la tirkeeda anaga waxaan lagu casuumay barnaamijka mini football ka qayb kamid oo la yiraahdo 5 club championship oo ka dhacay Brazil October 2016 oo sidii ciyaartoy UFD inuu qayb gali doonaan hadii la yiraahdo. marka mini footballka wuxuu noqday waa la socota Soomaaliya waagi hore salaxyada hadda lagu ciyaarayo ma lahan jirin Soomaaliya. ideadaas ama fikirkaas wuxuu ka imaaday mini footballka dadka iyagoo waxa laga yaabaa aan ka warqabin in mini football wax la yiraahdo jiro ama xiriir caalami ah mid Afrika oo jiro inay iska wadamada ku soo arkeen iska sameysteen. laakiin ideada iyo meesha ka timid ama ay ka dambeysay waxay ahayd World Mini Footballka. annagana Soomaali mini football ahaan ama Sonfa magaca marka la soo gaabiyo hawsha weyn aan qabanayna aan rabno ugu horeyso waxa waaye dadka inaan barno mini footballka shuruucdiisana inaan gaarsiino oo shuruucda lagu dhaqi lahaay kubadda cagta oo kubadda annaga waxa u bixino kubadda cagayraha. kubadda cagayrahaas waxaan rabnaa inaan u sameeyno garoomadii waxaan u sameeynaa inaan rabno garsoorayaashii waxaan rabnaa inaan u sameeyno tababarayaashii iyo shuruucda lagu dhaqi lahaa.
waxaa tahay xogayaha guud ururkan hadda Soomaaliya ama xiriirka u qaabilsan mini footballka dadka qaar waxa laga yaabaa in waraysigan ka hor aysan si weyn ugu baraarugsaneen arrintan bal ka waran xiriirka dhinacaas mini footballka sida Soomaaliya uu ku yimid cidda madaxda ka ah iyo qaabka uu ku dhismay intaba iyo sida uu rabo inuu u shaqeeyo waa runta mini footballka Soomaalida inta badan ma maqleen ayaga football unbuu u yahay laakiin mini footballka activity Soomaaliya way ka jirtay waxaa maqnaa kaliya aqoonti iyo shuruucda maqneed iyo in la dhiso hay'ad maamusho oo wakiil uga ah World Mini Footballka iyo midka qaaradda Afrika wakiil uga ah Soomaaliya ka howlgasha ururka waa dhisan yahay waana dhameystiran yahay shuruucdiisa iyo dastuurkiisa iyo maaragtay doorashiis way dhacday gudoomiyaha lagu doortay president Cabdiqaadir Cadaay oo London degan wuxuu leeyahay maaragtay gudoomiye ku xigeenno sida Yaasiin Abuukar Cariif iyo Cabdi Xaq oo kale oo gudoomiye ku xigeenna wuxuu leeyahay xubno leeyahay wuxuu leeyahay guddi garsoor uu leeyahay mid tababar uu leeyahay waxa rabnaa marka Soomaaliya waxa u maleynayaa xiriir cusub ama dhaqdhaqaaq cusub oo dunida ku cusub xiriir wada oo Soomaaliya imaaday 25 sano ma jiro xiriirkan waa xiriirka kaliya ee 25 sano kadib ku soo beeray Soomaaliya waana farxad u soo yeeto ummadda Soomaaliyeed waxa kaliya aan rabno waxay tahay marka inaan dhaqaaqno uu abaabulan yahay haddii la yiraahdo next week waxaan u soconaa Kismaayo oo mini footballka aad u soo dhaweysay labada bilood ugu dambeysay aad nolol shaqeynaysay garoomadii laga sameeyay tababaradii aan siinay maxaa la yiraahdaa garsoorayaashii ciyaartoyda laftirkooda aan tababaro u sameynay si ay u ciyaaraan kubadda cagayaraha mini footballka wax yar oo differences yar ku jiro in la fahamsiiyo qaabka loo ciyaarayo qaabka shuruucda garoonka marka la galayo marka laga baxayo sida loo ciyaarayo waxaas oo dhan marka waxaan rabnaa Kismaayo waa diyaar ama Jubbaland oo xiriirkooda iyo laftirkooda doorashiisa dhacayso marka aan tagno xagga insha Allah taala hadii la yiraahdo waa kasoo dhisaynaa waxa kale ku xiga Jowhar ama mid la Shabeelle gobolka Shabeellaha Dhexe oo asagana diyaar garoobay in maaragtay isu yimaadeen raggoodii sportiga ama kubadda cagta qaas ahaan oo maanta diyaar u in maaragtay xiriirkooda ay dhistaan kadib Shabeellaha Hoose gobolada kale wali ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa inaan gaarno Muqdisho maadaama xiriirada Soomaaliya ka dhisan dhamaantood ay Muqdisho wada dhisan yihiin kooxihii Muqdisho ay wada dhisan yihiin waxaan ka doorbidnay inaan horumarino marka ugu horeyso gobolada inaan kasoo dhisno kadibna aan magaalada Muqdisho aan dhex gelino 3-4 markaan dhisno magaalada Muqdisho mini footballka aan dhisno insha Allah waa gartay ilaa hadda markaad dhaqdhaqaaqan la xiriira mini footballka aad ka bilowdeen Soomaaliya fariimaha idinkaga imanaya dadka ciyaaraha xiiseeya nooca ay doonaanba ha ahaadaane maxay ahayd iyadu waxaa maaragtay ilaahay mahadiis oo farxada waagi aan aasasnay 2 bil ka hor aqoonsigiisa aan raadinaynay in la aqoonsado sababtoo ah xiriir aan la aqoonsanin oo caalamka uusan aqoonsanin ama hay'adda caalamka wakiilka oo aysan aqoonsanin ma jiri karo mana socon karo waa inaan meel ku tirsantahay markana la aqoonsaday oo aan social media aan ku faafinay oo aan Facebook sameynay ma maleyn kartid dadka Soomaaliyeed sida ay ugu hambaleeyeen dadkana soo xiriirayo kuwa dhahaya min footballka inaan ka shaqeynaa rabnaa si voluntary leh yani Muqdisho iyo gobolada iyo dunida waa soo keen mid qaar baa soo baxay hadda oo imaaday xamar oo nala shaqeynayo oo ka imaaday Europe oo u imaaday inay mini footballka horumariyaan maadaama mini footballka uu yahay waxa ugu horeeya grassroots ka soo dhisayo gurina sidiisaba foundationka ama asaaska laga dhisaa asaaski kubaddan cadi madowga aan rabnaa inaan maaragtay aan soo dhisno midda kale fursadda waxay tahay xiriirka mini footballka ma aha xiriir inta wax soo dhiso xiriirka lagu wareejinayo laakiin xiriirka waa xiriir leh kooxiisa leh qarankiisa ciyaaro u aadaya dibadda sida xiriirada kale ama hada basketballka ama xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ama hadii ilaahay ku riyaa ciyaaraha fudud kuwaas oo lamid yahay ciyaartoydiisa way baxayaan Afrika ka qayb galayaan way baxayaan ciyaaraha adduunka hadii ay gaari karaan ay tagayaan marka waxaan rajaynaynaa wax ka duwan wax hore
in maaragtay keeno ummadda dhan waxaan jecelnahay inay maaragtay gacan furan kusoo dhaweeyaan maadaama laga faa'iidayo wax badan laga korsanayo insha Allah dadka Soomaaliyeed ee waqtigan ku dhageysanaya waxay isweydiinayaan markay waraysigaaga si wanaagsan u dhuuxaan tartamada la ciyaari doona ee mini footballka kamid ah sidee noqon karaan ma horyaaladii hore loo arki jiray koobkii la arki jiray ma koob ka duwan dadka qaarkii wax laga yaabaa xitaa inay siraadaan tirada ciyaartooy ee garoonka galaysa ciyaartan dheelaysa intee bay ekaan karta dhinacaas markaad ka fiiriso dadku ay su'aalaha iska weydiinayaan maxaad ku fasiri leedahay adigu waa maxal raayay kubadda cagta iyo kubadda cagyaraha waxa u dhaxeeyo wax yar u dhaxeeyo tusaale ahaan markii la garoonka markii la galayo oo kale 11 iyo 12 loo galaa kubadda cagta ama footballka caadiga tan laakiin waxa loo galaa ama gobol ha ahaato ama tuulo ama degmo ama qaran mar waxa loo galaa 5 mar waxa loo galaa 6 mar waxa loo galaa 7 waxa la yiraahdaa 5 6 7 la yiraahdaa 5 6 7 ma sha Allah adiga category kasta wuxuu ku xiran yahay tirada galayso meel ay taala hadii ay tahay maxal la sheeg villages districts ama degmooyin iyo xaafado gobol yani qaran markay tahay wasaas kala duwan laakiin ciyaarta rasmiga ama official matchka waa 7 lagu galayaa la ku kala laga soo saakraa sharciyan marka 5 ka yar ma lagu ciyaari karo 7 ka badan ma lagu ciyaari karo waa gartay dadka raba inay macluumaad dheeraad ka helaan min footballka Soomaaliya sidee baraha bulsho ay booqan karaan waqtigan oo dawada u marin lahayd waxa ka codsanayaa inay booqdaan Somali mini football Facebook leeyahay waxa qoraysaa oo kaliya Somali space mini football automatically waa helaysaa waxa u baahannahay fikir waxa u baahannahay dad oo volunteer nagu la shaqeeyo oo sport waxa u baahannahay dad oo maaragtay dhaqaale geliyo barnaamijkan waxa u baahannahay dad hogaamiyo yani anaga hadii aan keenno ma ana taabsada maaha xiriirka mini footballku wuxuu furan yahay Soomaaliya oo dhan gobolku doona ka imaado sidiisaba waxa loogu talagalay marka fiirisid motoga ama halku dhiga anaga hadda xiriirkeena waa maaragtay mini footballku wuxuu fursad u yahay dhammaan Soomaalida oo dhan gobol gaarna maaha dad gaarna maaha marka fiiristo khudbadii oo madaxweynaha WMF ka uu jeediyay sanadkan waxa ka muuqato kuna base gareysan principles ka ay aaminsan WMF ka iyo Somali mini football kaba isdhexgalka bulshada ka hortagga dambiyada kor u qaadida yani aqoonta carruurta u gargaarka kuwa darbi jiifka iyo ka soo qabashada kuwa dagaalada iyo qaraxyada iyo waxyaabaha sidii lagu ibtileeyay sababtoo ah barnaamijkan Somali mini football ama mini football guud ahaanba shaqadiisa waxay tahay dadka oo dhan inoo soo keenay isla markaasna uu abuuro buundo ka hortagayso yani dadka in maaragtay isfaham darro ay timaado kubadda cagta oo hadda aan wadno mini footballka leeyahay waxa ciyaar karo da' walba ma laha xitaa maxal